soo gudbin doonaa dokumentari ku saabsan waxqabadka wasaaradda cadaaladda ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. xudur ma inaga tahay in oo beej cusub in furto oo in dabcan wal ibaran sanadda 2019 wuxuu ahaa sanad wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Koonfur Galbeed oo ahaa sanad wanaagsan. wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ee federaalka iyo anigay kamay kormeerka saanayha wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Koonfur Galbeed xafiiska magaalada Baydhabo waxaa muuqday waxqabad aad u ballaaran. يمكن ما يصير قصدان ديجان كخطر في قبلة الصومالية دوم بقارها قبلة كوفر قلبه إن قرصور شو له جاتي waxaa jiray safaro kala duwan oo wasiirka cadaaladda iyo garsoorka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo wasaaradda howlaheeda lagu horumarinayay uu ku kala bixiyay Muqdisho ilaa gobolada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. meesha ugu fiican oo cadaalad ka jirto aan leeyahay oo qabiil iyo gobolo aan loo kala saarin Soomaalida waa Koonfur Galbeed. xagga shaqaalaha horumar weyn ayaa laga sameeyay wasaaradda waxa shaqadeedii aad u soo ifbaxday sanadda 2019 in awood iyo opsala dareen awoodda dawladda le habo awoodii sharciga dawladda sharci lagu opsada oo hayna nafta bini aadanka iyada raqiisnagadaas haddaba maxaa u qabsoomay wasiir Maxamed Xuseen Xasan John ku magac dheer waxaad uga bogan doontaan dokumentarigan oo aynu ka diyaarinay waxqabadka iyo shaqooyinka wasaaraddu ay ku tallaabsatay waxaa si wada jira dokumentarigan halkan ugu soo wada jeedin doona anigoo ah Muxudiin Xasan Maxamed Xusni iyo anigoo ah Maxamed Abdicasiis Salaad shan iyo 22 Maarso wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Xuseen Xasan John waxa uu magaalada Muqdisho uga qayb galay shir lagaga hadlayay wada tashiga dhismaha xabsiyada laga hirgelinayo maamul goboleedyada dalka 26 Maarso isla wasiir Maxamed Xuseen John oo wali ku guda jira safarkiisa shaqo ee Muqdisho waxa uu ka qayb galay shir lagaga hadlayay wada tashiga dhibaatooyinka musuqmaasuqa iyo sida loo horumarin karo hufnaanta hawlaha dawladda isla maalintaas 26 Maarso ee sanadka 2019 wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa shir muhiim ah waxa uu la qaatay mas'uuliin ka socday hay'adda UN Women shirka oo laga hadlayay arrimo muhiim ah kuna dhamaaday guul iyo is-afgarad 4 Abriil wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdiwahaab Cabdullaahi Maxamuud ayaa shir gudoomiyay shir u bixiyay wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo hay'adaha ka shaqeeya kaalmada sharciga ee legal aid-ka loo yaqaano 7 Abriil madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo safar shaqo ugu socday caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho xilligaas dowlad goboleedka uu ka maqnaa gudoomiyaha baarlamaanka waxa uu ku sameeyay madaxweynaha u magacaabay wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Maxamed Xuseen Xasan John Maxamed Xuseen maalintaas ka hor kaliya waxa loo yaqaanay siyaasi daayar oo saaxada siyaasadda ku soo biiray bilo ka hor waxayna u hayd fursad uu isku muujiyo madaxweynaha ayaana kaalinta dhalinyarada xilligaasi muujiyay 8 Abriil isagoo ah kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ahna wasiirka cadaaladda iyo garsoorka mudane Maxamed Xuseen Xasan oo ay wehelinayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada Koonfur Galbeed waxa uu dhagax dhigay xarunta kaydka dawada ee xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo isagoo kaashanaya wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxa uu amray in kooxaha caafimaadka isla maalintaasi ay soo gaaraan xabsiga si adeegyo caafimaad loogu fidiyo maxaabiista xabsiga ku jirtay sidoo kale taliyaha xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo ayaa kula dardaarmay in biyo dhaamin loo sameeyo maxaabiista oo ay helaan biyo nadiif ah salaan kadib maanta farxad weyn inoo tahay anagoo kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed noo hogaaminaya dhagaxdhig aan sameynay dhagaxdhigaas dhagaxdhig keliya ma noqonayo insha Allah dhagaxdhiga maanta aan dhignay ballanqaadin aan sameynay aan ku dhex dhignay qolka waa dhisayna insha Allah qolkaas karimshiya loo rabaa lahayd hay'adaha wasaaradda caafimaadka la shaqeeya qayb inay ka geystaan jeclahay insha Allah aan farana qayb ka geystaan
wasaaradda caafimaadka qayb geysanay wasaaraddii kusmaha madaxweynaha aan wasiirkii cadaaladda asal cadaaladda qayb inay ka geysato sagaalkii bishii abriil dowladnimada sharaf leh waa saqdi dhexe ee habeennimo iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed oo si nabad ah magaalada wakhtiyo kula qaadanayay ciidamada taagan difaacyada hore ee magaalada baydhabo laga ilaaliyo iyagoona kormeeray goobahaasi sawirada iyo muuqaalada idan muuqda waa maxamed xuseen xasan oo wakhtiga ahaa kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed waxa uu helinayay wasiirka dhallinyarada ah ee qorshaynta wasiirka arrimaha gudaha wasiir ku-xigeenka amniga wasiir ku-xigeenka warfaafinta iyo saraakiisha ciidamada waxa ay kormeereen fariisimaha ciidamada ay ku lahaayeen gudaha magaalada si ay ugu dhiirigeliyaan shaqada ay qaranka u hayaan iyo weliba ka warqabka hannaanka shaqaa ciidanka 11 abriil kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed isagoo ah mudane maxamed xuseen xasan john waxa uu shirgudoomiyey kulankii khamiislaha ahaa golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed kulankaas waxaa warbixino looga dhageystay wasaaradda amniga gudaha oo ka warbixisay xaaladda ammaan ee deegaanada koonfur galbeed sidoo kale waxaa warbixino looga dhageystay guddi biyodhaamin oo uu xilligaasi magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo u ogmaday in biyodhaamin guddigaasi ay u sameeyaan kaamamka ku yaal duleedka magaalada baydhabo iyo gudaha magaalada oo xilligaasi ay ka jirtay biyo la'aan baahsan 12 abriil isagoo wakhtigaasi ahaa kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ahna wasiirka cadaaladda iyo garsoorka maxamed xuseen xasan oo ay hareero fadhiyeen wasiirka wasaaradda qorshaynta wasiirka maaliyadda waxa ay kulan la qaateen qaar ka mid a dhallinyarada reer baydhabo kuwa oo ka kala socday xarumo kala duwan ujeedka ugu muhiimsan ee kulankaasina waxa uu ahaa kalwarqaadasho iyo sidii dhallinyarada kaalin muuqata ay ugu qaadan lahaayeen dib u dhiska iyo hannaanka dowladnimo ee koonfur galbeed mudane maxamed xuseen xasan waxa uu dhallinyarada ku dhiirigeliyey inuusan ka xirnayn xafiis walba oo laga maamulo koonfur galbeed tusaalena u soo qaatay in maalintaasi isagoo kusime madaxweyne ah koonfur galbeed kana wakiil ah madaxweynaha ay isla meel dhigaan waxyaabo waxtar u leh dadka ay matalaan 14 abriil kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed maxamed xuseen xasan oo ay wahelinayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada koonfur galbeed waxa ay baydhabo ku daahfureen olole biyodhaamin ah oo muddo toddobaada ka socotay deegaanada koonfur galbeed kuwa oo muhiimadda ugu weyn ay ahayd in bulshada koonfur galbeed ee biyola'aanta haysa lagu caawiyo iskuulaha madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis oo uu magacaabay guddi dabcan oo talanta leh ka filan inuu arrimo lan xil saariyo ku jawaabo marsheemayba ma naga yahay guddiga oo hogaamiyaw wasaaradda oo biyo wasiir imaan guud ahaan mayba aragahaynahay in oo problemaadii dhibaatooyin biilaan ku jarta gobolka guud ahaantiis gaar ahaan magaalooyin qaar oo baydhabo goob wataa diinsoorka jarto buurka jarto ilaa iyo deegaano boqol ku tirsan dabcan may filaanahay in oo guddigan biyodhaaminta iyo jawaab kujaysida doonaan deegaanadaasay laakiin hadda geekula ku bilaabay magaaladan baydhabo khaasatan dadka barakacyaalka ilaa iyo lahaladeeri dhowr iyo toban hooydood oo biyo wana sii dareero doonto 19 abriil kusimaha madaxweynaha isagoo ah mudane maxamed xuseen xasan john waxay wasaaraddiisa cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed ay soo saartay amaro lagu hakinayey dacwadaha dhulalka la isku haysto muddo ku siman 100 maalmood 7 May wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ka mid ahaa wafdiga madaxweynaha dowlad goboleedka ee ka qaybgalayay shir ay isugu yimaadeen dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka oo ka dhacayay garowe waxay booqasho ay ku tageen wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Puntland xilligaasi waxaa ku helinayay booqashada wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka koonfur galbeed labada wasiir waxay dhigooda Puntland la qaateen kulan isugu jiray isbarasho isxog wareys iyo warbixin kala qaadasho waxaana lagu ballamay wada shaqayn wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo kambeeraha waxay qayb ka hayeen wafdi hogaaminayay madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo maalmahaasi howlo shaqo u joogay garowe 15 May wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane maxamed xuseen xasan
waxa uu dhallinyarada magaalada baydhabo uu kala qayb galay xuska munaasabadda maalinta dhallinyarada oo ugu hambaliyey dhammaan dhallinyarada Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan 15 May. wasiir maxamed xuseen oo khudbad ka jeediyey munaasabadda ayaa kula dardaarmay muhiimadda ay leedahay weynaynta maalintan ku weyn qulubta shucuubta Soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada. waxa uu kula dardaarmay dhallinyaradii ka soo qayb gashay kulanka inaysan isdhiibin oo ay ka mira dhaliyaan rajooyinkooda mustaqbalka dawladana ay la shaqeeyaan oo ay garab istaagaan. 16 May wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Koonfur Galbeed mudane maxamed xuseen xasan waxa uu shirgudoomiyey kulankii toddobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada Koonfur Galbeed oo toddobaadkiiba mar ay yeeshaan. kulanka oo maalinta lagaga hadlay ansixinta hindi sharciyeedka hantidhowraha guud ee maamulka Koonfur Galbeed oo golaha wasiiraduna ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen. 18 May wasaaradda cadaaladda waxa ay soo saartay awaamiir adag oo ay ka soo saartay askar ka tirsan ciidamada dawladda iyo kuwa maleeshiyaadka ee dilalka ka geysta magaalada Baydhabo. wasiirka cadaaladda mudane maxamed xuseen wasiir ku-xigeenka amniga odayaasha dhaqanka ayaa kulan saacado badan qaatay ugu dambeyn la saxiixay sharci dhigaya in qofkii qof dila la dilo waxaana sharciga sidoo kale la horgeyn doonaa waa waqtigaas lagu ballamay baarlamaanka Koonfur Galbeed oo ugu dambeyn uu saxiixi doono madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed. kulanka markii uu soo dhamaaday waxaa saxaafadda la hadlay qaar ka mid ah wasiiradii saxiixiyaasha ka mid ahaa iyo odayaasha dhaqanka. amni iyo cadaalad oo wada shaqeeyo in la helo amni iyo cadaaladana meesha ku hayaanaha sareynta sharcigana meesha ku haysaa in awood iyo opsala dareemo awoodda dawladda le habo awoodii sharciga dawladda sharci lagu opsada hayna nafta bini aadanka iyada raqiisanagadaas nafta bini aadanka qaalanka wala may go'aansanayeen in oo ilaahay baqaalka weelayeen in oo sharcigi la fuliye oo haylankii landila oo soo bereer ka sendila in maxkamado go'aan ku deeran waana la dila go'aankaasna wala iska qaadaday min wasiir ilaa odayadii dhaqanka oo Koonfur Galbeed saaxiyaal soo kumid hayeen mayna la iska qaaday in oo lankii landilo soo ka sendila la dilo doono langu daba kooy doonay oday dafacad doono midna soo halaana madaxweynaha Koonfur Galbeed ee xukuumadda noo xulay maanta mahadsanid baan ku leenahay wasiirada mabruuq iyo hambaliyay ku teestay. 20 July wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane maxamed xuseen xasan oo ka hadlay kulan dhaxmaray wariyaasha ka howlgala magaalada Baydhabo iyo xubno ka socday golaha wasiirada Koonfur Galbeed waxa uu ku dheeraday muhiimadda saxaafadda ay leedahay. ujeedada ugu muhiimsan ee kulanka habeenka dhacay wuxuu ahaa sidii wariyaasha iyo maamulka Koonfur Galbeed wada shaqeyn ballaaran ay u yeelan lahaayeen. falanqeyn iyo waliba tabashooyin jiray kadib oo kulanka lagu falanqeeyay waxaa lagu ballamay wada shaqeyn xagga dawladda iyo wariyaasha ah. laakiin may ku dadaalanaa dibala dibkii oo wariyay gudub la jeysada una yamuna balsuun wariyalka madama wasaaradda una balsuun wasaaradda taasay ya balsuunto ununa ka dhiirigelino la balsuuno dafacana xuquuqda wariyaha soo kaleey Koonfur Galbeed guud ahaan gaar ahaan Baydhabo intii la soo walidaya may arayhin oo madaxweyne latin wasaaradda latin wasiirada saxaabada latin وليدية إن لك حلية سدنك معقولسون سدنك دخس بدن أنتي أو غير بطلان غير صومالي أهرمون هاني كارنا بنانك من أوجهنا طبعا هذه غلط يلا صحة طبعا يلا صحة مركز بهذا الجزء وسوقه بصحة وسوقه ما 22 July wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Koonfur Galbeed waxa uu shir gudoomiyay shir bishiiba mar la qabto ka oo isugu yimaadeen hay'adaha bixiya kaalmada sharciga iyo wasaaradda. wasiir maxamed xuseen kadib kulanka oo hadlay waxa uu sheegay in waxyaabaha ugu muhiimsan ee kulanka lagu gorfeeyay ay tahay baahiyaha iyo caqabadaha haysta hay'adaha iyo waliba wasaaradda
taasna ay tahay sidii dhanka u kaalmaynta sharciga bulshada loo gaari lahaa. si la mid ah shirka isla maalinta waxaa martigeliyey master adams iyo weliba master smith oo u dhashay dalka ingiriiska kuwa oo ka socday hay-adda governance and justice group oo ka shaqaysa xog ururinta arrimaha garsoorka iyo kaalmaynta hay-adaha sharciga. bismillahi rahmaani rahiim. geekameyba wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ee koonfur galbeed xafiisya ka qodanaya shirkii oo bilaahay ballanka talagalay in la qodada hay-ado oo biyayaan kaalmada sharciga oo la qorado ama legal aid la qorado kulankumna bilihay weli sheego la qodada jiray maabil kasta la qodaday wala la iska warsado inta badan may hayana daban baahida oo hay-ado badan iyo sidii uu kaalmay fani qabada iyo haysadaan sidoo kulama iyo walayo biyayaan naftiyo iyo cadeeno eraan waxaana biyaan adeegyada aan ka talagalnay dadka oo dhibanayaasha iyo lanka kaalmaya kala warbixin qaadasho iyo weliba isxoguraysi dheer kadib kulanka ayaa guul ku soo dhammaaday. 27 Julaay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed mudane maxamed xuseen xasan ayaa qaar ka mid ah saraakiisha iyo askarta ciidamada baleeska ee baydhabo u furay tababar ku saabsan ka hortagga iyo difaacidda tacdiyadda loo geysto carruurta. tababarkan oo baydhabo ka socday muddo ku siman 2 maalmood waxa ay saraakiisha ku barteen qaabka loola dhaqmo goobaha lagu xiro carruurta, sidii loo wacyigelin lahaa iyo hannaanka loo maxkamadeeyo carruurta da'dooda ay ka hoosayso 15 jirka. wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed maxamed xuseen xasan oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in carruurta ay yihiin ubaxii dalka, muhiimna ay tahay in la dhiso aqoontooda, garaadkooda, sidoo kalena mararka qaar ay qaladaad ay ka dhici karayaan balse aan loola dhaqmin sida dadka waaweyn oo kale. marka booliistan iyana kaalaga kulatay in barbaarinta ciyaalka iyo tarbiyaynta iyo qaadata markaan anaga hooba dambe gala reintegration wala soo biya wala xareeye wala hiroogas laakiin hiroodeersiin kan oo dadka weyn ee qaab kale oo penalty banishment usmaraw male ilaa iyo lankaasay isku korin oo waan lagu barawalay qalami. daawadayaal iyo dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka waxqabadka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed sanadka 2019 ee sii dhammaanaya. 26 Agost kulan looga arrinsanayay dardargelinta cadaaladda oo baydhabo ka dhacay waxaa ka soo qayb galay laamaha amniga, garsoorka iyo saraakiil ka socotay wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed. waxaa lagu falanqeynayay isku dabaridka hanaanka cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed. wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka mudane cabduhaab cabdulaahi oo shir gudoominayay kulanka ayaa ka hor akhriyay qaybihii kala duwanaa ee ka soo qayb galay kulanka. qoraal uu kaga warbixinayay xaaladda adag iyo duruufaha ku hareeraysan cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo sidii laamahan kaalin muuqato ay uga qaadan lahaayeen dardargelinta iyo xoojinta cadaaladda iyo is-aaminaadda u dhexaysa bahda garsoorka iyo shacabka guud ahaan meel walbuu ka joogo koonfur galbeed. 27 Agost wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane maxamed xuseen xasan john waxa uu baydhabo ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowladda federaalka Soomaaliya. ujeedka ugu muhiimsan ee wasiirka iyo wafdigiisa u soo gaareen baydhabo waxay ahayd kulamo ay la qaadanayaan madaxda maamulka koonfur galbeed, laamaha garsoorka, hoggaanka wasaaradda iyo sidii indheendheen ay ugu sameyn lahaayeen xilligaasi dhul bannaan oo loogu talagalay in laga dhiso xabsiga ugu weyn dowlad goboleedka koonfur galbeed oo dhismihiisa la filayo inuu dhowaan ka bilowdo magaalada baydhabo. wasiir maxamed xuseen xasan ayaa soo dhoweyn kadib u mahadceliyey wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka ee xilligaasi soo gaaray magaalada baydhabo una socday howlo qaran iyo ballaarinta daadejinta shaqada ay wasaaradda bulshada u hayso. 28 Agost wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo uu helinayay dhigiisa koonfur galbeed waxa ay si wada jir ah u booqdeen xarumo dhowr oo ku yaala magaalada baydhabo. booqashadaas oo ay ahayd mid wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ee dowladda federaalka Soomaaliya ugu kuurgalayay
xaaladaha shaqo ee wasaaradda cadaaladda koonfur galbeed baahiya ay qabaan iyo weliba horumarka ay ka sameeyeen shaqooyinka baaxadda leh ee sanadkan la qabtay ayay qayb ka ahaayeen wasiirka ayaa kormiirkiisa ku bilaabay xarunta guud ee wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda koonfur galbeed goobtan oo uu kula kulmay howlwadaennada wasaaradda uu ka waraystay howlahooda shaqo waxaana uu mid mid u booqday xafiisyada qaybaha ee wasaaradda ku dhex yiilay wasiirka oo socdaalkiisa shaqo sii wata ayaa sidoo kale kormeeray xafiisyada garsoorka koonfur galbeed ee soomaaliya isagoona kulamo gaargaara la qaadanayay garsoorayaasha maxkamadda iyo weliba guddiga adeega garsoorka koonfur galbeed si lamida waxa uu booqday xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo goobtan oo warbixino uu kaga dhageystay saraakiisha xabsiga gacanta ku haysa raxmaan raxiim wasiirka taliyaha iyo dhammaan marti sharafta kale ila socotay kormeerkan aad iyo aadaan u salaamayaa sidii wasiirka sheegay waxaan ku joognay baydhabo inaan fiirino aragno la tashanno bahda garsoorka oo ay ugu horeyso wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed maxkamadaha xeer ilaalinta iyo asluubtaba waxaan samaynay kulamo dheerdheer aan ka hadlayno baahida meesha jirto caqabooyinka meesha yaallo iyo horumarka aan rabno inaan gaarno waxaan ilaahay ku mahadinayaa in ay jirto meeshan wada shaqayn aad iyo aad u wanaagsan wasaaradda cadaaladda federaalka iyo wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka iyo bahda cadaaladda koonfur galbeed 29 Agosto wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane maxamed xuseen xasan oo uu wehelinayay gudoomiyaha maxkamadda sare ee koonfur galbeed waxa uu baydhabo ku dahfuray imtixaanka qaybaha garsoorka ee koonfur galbeed oo ay u fariisteen 48 ruux oo isugu jiray garsooryaal xeer ilaaliyaal iyo libakaalayaal sare wasaaradda garsoorka ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxa ay ku howlaneyd hagaajinta adeega garsoorka ee koonfur galbeed iyadoo hakisay dhammaan dacwadihii dhulka ee la isugu haystay ilaa laga helo garsoor ku filan wax ka qabashada dhibaatooyinka soo noqnoqday wasiir maxamed xuseen ayaa u rajeeyey garsoorayaashii maalintaasi imtixaanka u fadhiistay nasiib wacan iyo inay dalkooda ugu adeegaan si daacadnimo ah wasaaraddana waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in xuquuqdooda ay meel sare saari doonto si ay uga fogaadaan musuqmaasuq kuwii iyaga ka horreeyey lagu eedaynayey 29 Agosto agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane maxamed daaq nuur cabdi waxa uu baydhabo ka furay kulan isugu yimaadeen agaasimayaasha wasaaradaha dowlad goboleedka koonfur galbeed kaasoo looga hadlayay iswaafajinta sharciyada ay ku shaqeeyaan wasaaradaha maamulka koonfur galbeed iyo dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed agaasime maxamed daaq nuur cabdi ayaa xilligaasi sheegay in muhiim ay tahay sidii wasaaradaha uga wada shaqayn lahaayeen sharciyada ay horgeynayaan baarlamaanka u ahaado mid ay isla og yihiin si hadafka guud ee wasaaradaha mid u ahaado sharciyada wasaaradaha uusan noqon mid khilaafaya dastuurka guud ee maamulka iyo kan shaqadoodaba 22 September wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed mudane maxamed xuseen xasan iyo wafdi hogaaminayo ayaa gaaray magaalada madaxda gobolka Bokool ee Xudur waxaana socdaalkiisaas ku wehelinayay xubno ka socday wasaaradda cadaaladda ujeedada ugu muhiimsan ee safarka wasiirka iyo wafdigiisa waxa ay ahayd wakuurgelidda iyo weliba kormeeridda laamaha garsoorka degmada Xudur fulinta tababaro kor loogu qaadayo xirfadaha shaqaalaha wasaaradda iyo kulamo wada tashiyo uu la yeelanayo maamulka gobolka Bokool kan degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Xudur wasiir maxamed xuseen xasan iyo wafdigiisa waxa ay maalmo shaqo ay ku qaateen gobolka Bokool gaar ahaan magaalada Xudur muddada ay joogi doonaan waxa la filayaa in qaybaha kala duwan ee garsoorka iyo cadaaladda bulshada ay ka wacyigeliyaan
22 September wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed mudane maxamed xuseen xasan oo wehelinayay taliyaha ciidamada asluubta ee koonfur galbeed waxa ay degmada xudur ee gobolka bokool kulan kula qaateen guddiga xalinta khilaafaadka ee odayaasha dhaqanka ee degmadaasi iyagoona ka wada hadlay suurtagalnimada sidii odayaasha ay door muuqata uga qaadan lahaayeen xanaanka horumarinta cadaaladda iyo laamaha garsoorka ee gobolka bokool qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo la hadlay waxa ay wasiirka uga mahadceliyeen booqashadiisa magaalada xudur iyo ahmiyadda uu siiyey saraynta sharciga dhankoodana waxa ay sheegeen ay diyaar u leeyihiin wada shaqaynta iyo garab istaagga laamaha amniga garsoorka iyo weliba wasaaradaba geedkan maysiin oo sudaanay deegaanka xudur iyo gobolada Soomaaliya doonba gaar ahaan gobolada koonfur galbeed in garsoorsho la hagaajiyo ay weelay bani aadamka wala ka nooliya in uu se wala xaqeeso qofsad si cadaalad ay ka saar qof isu waaye dirfanaadeen wala wala usmin oo ma usadaanay baahida gobolku tadigil miriflaan ko tad miriflaan ko dadkiisu ku dhalateen dadkiisu dhalateen labta kale dadooda loo baragsin balaweynu kalsoon gudoomiye baarlamaan weeraw wasiirka gaashaandhigga ninkweeri ra'iisul wasaaraha ninshaan hatan dhoogaay barnaare afartii sin hor furu qaranaare balowgeey muddo sida sayid bilaw inta wadada rabatay shaqada qalbiga 22 September wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dawlad goboleedka koonfur galbeed mudane maxamed xuseen xasan waxa uu kulan la qaatay maamulka degmada xudur kan gobolka bokool waxayna ka wada hadleen qorshaha dhismaha xarunta maxkamadda iyo xabsiga dhexe ee degmada xudur wasiir maxamed xuseen ayaa sidoo kale maamulka gobolka bokool iyo kan degmada xudur ku wehelinayay in laamaha garsoorka iyo weliba garsoorayaasha maxkamadaha ay heli doonaan xuquuqdooda ay xaq u leeyihiin dhankoodana laga rabo inay si wada jira uga shaqeeyaan bulshada ay u adeegaan maamulka gobolka bokool ayaa sidoo kale ka codsaday in dhankooda ahmiyad gaar ah ay siiyaan cadaaladda iyo garsoorka geeka ma imbaahan inuu isweydiino ma imbaahan maro ma jari jartay oo darees asbuub langalada oo jari jar laakiin hadda geeka ma jaraha saraakiil jarta taliyaal jaraan dablayaal jaraan booliis iyo asluub military wala haduna baahanna ma baa in una ku shaqeeyna tayeyn adeega cadaaladda wala la kasaw in una ku shaqeeyna cadaaladda jarta xubnaa wala ku rooga laakiin in la tayeeyo adeegi oo cadaaladda muhiimada concept uu faahna fadaan fikirku faahna fadaan kaaso wala kale inu ku shaqeeyna la fadaan ma baa in garsoorayaal ilmo durugsan la walaaya u wadayaan in la weydiiyo daban dadaha shaqeeyay 22 sano shaqeeyay dhibaato qalalaasa abni xumo baaha shaqeeyay sida gudoomiyaha sheegay dadkaasay ma ileeyna waaya aragnimo ka filan madiyo hagalayeen noolaha galaan ilmahayti dadna ma jaraha waa aragnimo laakiin ilmagiya theory barad fikir ahaan baradan jaamacadaha ku baahan shahaadooyin qabaan wala baahan marka in dadkii لسم لمدايو dadkii way aragay dadkii wala baraday intii lamidaayay lagu faa'iideysay ilmajo yamay laga taayay koreha adeega garsoorka uu biyaan isla 23 wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed mudane maxamed xuseen xasan ayaa booqday saldhigga degmada xudur maxkamadaha iyo xabsiga dhexe ujeedka ugu muhiimsan ee socdaalkiisa wasiirka waxay ahayd ukurgelida iyo ka warqabka baahiyaha ay qabaan laamaha garsoorka xudur goobaha uu booqday ee xabsiga dhexe iyo weliba saldhiggana waxay ahaayeen meel burbur xoog leh ka muuqda tan iyo dawladdii dhexe ee dalkana wax dayactir aan helin wasiirka ayaa booqday dhismaha cusub ee xabsiga degmada xudur oo dhawaan dib u dayactir lagu sameeyay waxa uu warbixino ka dhageystay taliyaasha ciidamada asluubta iyo baleeska ee ku aadan baahiyaha shaqo ee ay qabaan geekowna habooqani xarumoogi oo lagu caawiyaa cadaaladda oo ka hor jarta maxkamadii asluubtii iyo saldhigiba ma ka aragnay dabcan horumar fayla hadda ma isfaylan shaqeeyahay xabsiga saldhigi oo booliska oo hataa haaya
dadka linka talagalay in xabsigan la kahay iyo hayaan ciidan rooga laakiin ciidan tar yar rooga taliyihii qaybtii taliyaha saldhigga barooga in shaqeeyeen oo bisho furnay horumar ku jari dabcan meelaha deegaanka ciidan liidato in lagu shaqeeyo la fadaaw oo dabcan nasiib wanaagna sanad markii la fiiriyo nasiib darre may booha maxkamado iyo xabsiga maxkamado may xakamarnaya oo kiiska ka jaran geed hostis ka shaqeeyaan daban qorshagaan hay in maxkamado lan hala meelo ka shaqeeyaan intii maxkamad lan ku dhisaw mayna rajeeyanahay in oo intii una bana arintaas ku shaqeey doona waana lan dhisi doona maxkamadii tiyo may kula hadala doona degmada iyo gobolka meelo maxkamadaas la ka dhisaw meelo hore in hayti xogaa yar ku dheerta xabsiga in maxaabiis la qaado meel la jeeyo baan baahdo doonto logistic iyo transportation badan laakiin ma jirtay meel oo dhaxayta xabsiga isal dhigan dhaxayto dawli hayti oo wan burbursan kula hadala doona kulay maamulka intii qusayt in meel la say maxkamadda lan allocate gareeyo lan qoonday 24 September wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Maxamed Xuseen Xasan waxa uu kulan la qaatay gudiyada arrimaha bulshada ee ka howlgala degmada Xudur ee gobolka Bakool waxa uu kala hadlay suurtagalnimada sidii si iska ah loogu dhisi lahaa xarunta maxkamadda degmada Xudur oo ay isaga kaashan lahaayeen qaybaha kala duwan bulshada degmada Xudur iyo wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kaashanaysa xafiiska madaxweynaha qaar ka mid ah gudoomiyaasha gudiyada oo soo jeedinta wasiirka ka rayi dhibtay waxay soo dhaweeyeen fikirka wasiirka iyo sida muhiim ay u tahay in Xudur ay hesho dhismo maxkamadeed maadaama kiisaska maxkamadaha xilligan lagu qaadayo geed hoostiisa dankoodana ay diyaar la yihiin waxay kaalin ah ee kaga aadan dhismaha xarunta cusub ee maxkamadda Xudur 25 September wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Maxamed Xuseen Xasan iyo gudoomiyaha degmada Xudur ee gobolka Bakool Maxamed Macalin Axmed waxay si wadajir ah u dhagax dhigeen dhismihii xarunta cusub ee ku shaqeyn doonaan maxkamadaha heer degmo iyo heer gobol ee gobolka Bakool taasoo maalmo ka hor kulamo uu la qaatay bulshada uu ka talageliyay soona jeediyay in si iska ah lagu dhiso xarunta maxkamadda degmada Xudur degmada Xudur oo aan yeelan ku dhawaad muddo ku siman 30 sanadood xarun maxkamadeed oo dacwadaha lagu qaado markii ugu horeysay waxay dhawaan heli doonaan laamaha garsoorka xarumo ay ku shaqeeyaan hore waxay xukunada ugu qaadi jireen geed hoostiisa iyadoo sidoo kale aysan heli jirin waxyaabaha asaasiga u ah shaqada maxkamadaha wasiir Maxamed Xuseen Xasan oo ka duulaya ballanqaad wanaagsan oo ka haysto xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo kala shaqeynaya hirgelinta dhismaha ay ku shaqeyn doonaan maxkamadaha Xudur ee iska kaashan doonaan maamulka Koonfur Galbeed iyo shacabka degmada Xudur waxa uu ku bogaadiyay hawsha adag ay dhaxda u xirteen wasiir Maxamed Xuseen ayaa ugu dambeyn u mahadceliyay xilligaasi madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen dhiirigelintiisa iyo ballanqaadkiisa ku aadan inuu noqon doono qofka ugu horeeya ee gacan ka geysta dhismaha xarunta cusub ee maxkamadaha degmada Xudur ee gobolka Bakool iyo gobolka Bakool dhan meel fadhada fadeen rafcaankii walaalnka tala galnayna may booha in oo maxkamadun dhagax dhigshe ku qayb galaan dadkii maamulku ku hayay degmadan iyo gobolka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo matalaana maxkamada may ka dhagax dhignay awaamirta xukuumadii madaxweynaha oo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis oo sheegay in usuunku qayb kula bahdoona qaraankii la ka dhisafadi isilqaankii la ka dhisafadi usuunku qayb kula bahdoona anoo ka wasiirka cadaaladda may ballan qaaday in aan qaybtay dhibado doona wasaaradda cadaaladda shaqaalajana bal ku qaado doona in iyo qayb ku qaadan wali rooga gobolka Bakool iyo wali bay rooga iyo wali rooga shabeellaha hoose ku qayb qaado doonaan saddex gudoomiyaha degmada gobolka Bahore in ballan qaadan iyo qayb ku qaado doonaan maysiin ku codsadaan in soo bidaan gudi 26 September wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Koonfur Galbeed Mudane Maxamed Xuseen Xasan waxa uu kulan isugu jiray isbarasho iyo isxogoreysi la qaatay dhalinyarada degmada Xudur ee gobolka Bakool ujeedka ugu muhiimsanaa ee kulankaasina waxa uu ahaa isbarasho oo wasiirka la qaatay dhalinyarada Xudur
waxaana ay tahay dhiirigelin iyo kala warqaadasho guud oo ku aadan marxaladaha iyo baahiyaha ay qabaan dhallinyarada degmada xudur isxog waraysi iyo kala warbixin qaadasho kadib wasiirka ayaa la shaahay dhallinyarada oo ay kala qaateen warbixinno isagoo uga mahadceliyey soo dhoweynta diiran ay u sameeyeen markii isaga iyo wafdigiisa ay soo gaareen degmada xudur cadaalad markii la dhameesho ugu roon waa koonfur galbeed Soomaaliya inta ina adeer iyo hebelo iyo jiro cadaalad ma imaanayso cadaaladdu waxay ku imaan kartaa dhalinyarada markay iskaashadaan oo ay qof aqoon leh fahansan wixii ay helaan aqoon ay heli karaan cadaalad laakiin haddii oday waayeel ah oo qabiil ku qufulan yahay la keenay cadaalad ma jirayso cadaalad waxay imaanaysaa markii dad aqoon leh iskaashadaan waxyaabo badan arkay og meelo badan soo kala maray ay xil Soomaaliya ka qabtaan oo dhalinyaro ay yihiin meesha ugu fiican oo cadaalad ka jirto aan leeyahay oo qabiil iyo hebelo aan loo kala saarin Soomaalida waa koonfur galbeed wali ku hadalay cadaalad daro horta micnaasha wali waxa xuquuqul insaanka oo la dhowri waayo mid kale wali ku hadalay hadda wali miisaal ha ku qaaday deegaanka ka hadda ka sugna cadaalad daro ku jirta wali waxa dad oo wali aragaas oo jaamacad dhamay dad oo meel raa'is batay ABCD ha qorday oo shaqadii aawkay qabiil la iskasiyo taasa jirta waayo dhibaatada sheegsheena korto wali waxa arday haduu wal baradahay iskuulad dhigadaayaan ardaydaasaytii wali oo fiiriyayana dadka oo jaamacad ha dhamaayeen oo fadhiyaan dadkii kala shaqada si ay aragay way saraayana waayo dadka oo jaamacad ha dhamaayo fadhiyana sababtoo walka baradaana may walan baraniyeen wali ku yaaba intaas isku dhaadhacaysiiyaan yar ku yaabo sidoo kale wasiir maxamed xuseen waxa uu ku ammaanay dhalinyarada degmada xudur inay yihiin kuwa ku guuleystay oo midaysan una dhabar adeegay marxalado kala duwan oo ay soo martay degmada xudur xilliganna loo baahan yahay inay ka shaqeeyaan dib u dhiska iyo horumarka degmada xudur taa oo sababtay kulan isla habeennimada uu la qaadanayay dhalinyarada oo abaabul iyo diyaargarow xoog leh kulanka ka muuqday may iidanka faraxsanadaban in geeka kulankan aan siin la qaadahay oo ka saabsan wali uu ku qabada lahayn cadaalad daban taladan iyo fikirkan isii haytan may ayina aan 10 cusub litii 7 bilood oo magacaabanayni meel aan roogi oo fursadaas ka haysadii bay dhawaaytay xamar saadi meel kaliya oo an markii in korjarti 6 bilood ka baad kooy yamay nagatay xudur laakiin xudur may nagatay in oo beej cusub in furto oo in dabcan wal ibaran dadka deegaanka rooga ma in sheegana waxyaabo badan oo aan markii istaaway dabcan in wal badan ku ogaa cadaalad in sheegan hadii aftiiniyaan kulunkun meel aan saldhigay hay oo bay dhabahay timadana saada kan amal ku wada doon mayna itusteena daban in bulshada ra'yiga markii safaylan dhagansada waxyaabo badan hakii kor raacay sheekh cali macalin maxamed oo ah aabada ah isaga iyo qoyskiisana ku noolaa tuulooyin hoos yimaada degmada xudur ee xarunta gobolka Boqol waxa uu tuulada uu ku noolaa ay ku haysteen waqtigii hore ganacsi iyo xoolo ay dhaqanayeen laakiin xaalka waxa uu isbedelay markii al-shabaab ay ka dhaceen xoolihiisii iyo ganacsigii yaraa ee uu lahaa sida uu noo sheegay waqti aynu booqsho ku joognay degmada xudur ee xarunta gobolka Boqol isaga iyo qoyskiisa hadda waxa ay ku nool yihiin degmada xudur ee xarunta gobolka Boqol waa imaam masaajid waxa uu dadka ku dhiirigeliyaa in al-shabaab ay la dagaalamaan si fikirkooda aysan ugu maran habaabin dhalinyarada Soomaaliyeed wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed maxamed xuseen xasan ayaa sheekh cali macalin maxamed oo ah qofka dhibaatadan soo gaartay ayaa wasiirka waxa uu ku booqday hoygiisa isaga iyo ilmihiisa waxaana uu waqtiga u geeyay deeq lacag ah oo uu ku dhiirigelinayay waxaana wasiirka uu sheegay in sheekh cali macalin maxamed uu sii wado in uu dhalinyarada u sheego dhibaatada shabaabku ay dadka ay ku hayaan waxaana uu sheegay in ka maamul ahaan ay uga warqabi doonaan marxaladda noloshiisa 3 Oktoobar wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo
wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed xuseen xasan waxa uu magacaabay guddiga madaxa bannaan ee dhisidda xarunta maxkamadaha heer degmo iyo heer gobol ee laga dhisi doono magaalada xudur ee gobolka bokool oo ay iska kaashanayaan dhisitaankeeda dadka deegaanka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaana wasaaraddiisa 26 Oktoobar wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed waxa uu baydhabo ka furay barnaamij wacyigelin arrimaha sharciga oo iska kaashanayaan qabsoomadiisa wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ururada qareennada sidoo kale inta uu socday barnaamijkan waxaa ka qaybgelayay odayaasha dhaqanka culimaadudiinka iyo hooyooyinka xaafadaha baydhabo ay ka kooban tahay 10 November wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane maxamed xuseen xasan oo howlo shaqo u joogay degmada waajid ee gobolka bakool waxa uu kormeeray oo ku guuleystay in xaruntii maxkamadda degmada waajid oo muddo ku siman 3 sannadood ay fariisan ku meel gaar u ahayd ciidanka nisa oo ka howlgalaya degmadaas uu dib u howlgeliyo wasiir maxamed xuseen xasan ayaa xilligaasi sheegay inay suurto gashay inay la soo wareegto wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed in maxkamadda degmada waajid oo muddo lagu shaqeyn lagu wareejiyo gudoomiyaha maxkamadda degmada waajid wasaaradduna waxay uga mahadcelisay dhammaan wasiiradii ka qayb qaatay dib u soo celinta xaruntii maxkamadda degmada waajid si loogu shaqeeyo bulshada si gaar ahna wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo madaxdii kale ee ka qayb qaadatay ayuu wasaaradda cadaaladda uga mahadcelisay dib u soo celinta maxkamaddii degmada waajid ay wasaaradda muddo ku shaqeyn fariisinna u ahayd ciidamada nisa tankaal muddo dhowr sano amayba xaruntii nabad maxkamaddii degmada waajid ka shaqeey jirtay ilaahayda nabad sugudda deganayti mayba nasiiban weelana geekantii oo meeraray maxkamaddii ka wareejino oo hay'adda nabad sugudda mayba wareejahayna maxkamaddii horta buu ka jarnay sidii aan shaqeeyto oo la shaqeeyna haddii la insha Allah mayba waxa wareejahayna وليبا جيكم كما نجي رسول قبل عليه الصلاة والسلام لمن لا يشكر الناس لا يشكر الله قف كان شكري بني آدم كن معه هنجيري ما كشكر إلهنا وليبا أنك شكري كما نجي حفيزكي أو إذا ماذا النساء سيكون يلدار هنك أنك دقناين إني اللي وريجي حتى إني أنا قدومي دقمة اللي نسكوري جنة يعني حفلة قيمة بدن أوضة صرصرة حيقول غيب قرن حتى ندت شرف بدن اللي كل وريجي إيدي إذا كمان نجت تعرف نفترش ما هناك مهمة أو إيدي إذا كمان نجت وزير كجرسورك يا عدالة سببته أنتي سكوي بعد جرسورك أنا والحياة مهم بدن يهلي 22 November wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed mudane maxamed xuseen xasan iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada oo gaaray degmada diinsoor ee gobolka baay waxa ay kormeereen xabsiga dhexe ee degmada diinsoor iyo qaybaha kale ee magaalada ujeedka ugu muhiimsan ee socdaalka wasiiradan ay ku tageen xabsiga dhexe ee degmada diinsoor waxay ahayd u koorgelidda xaaladaha maxaabiista halka ku xiran iyo baahiyaha adeega ee bulshadu ay qabaan wasiirka cadaaladda ayaa mid u wareystay xaaladda maxaabiista halka ku xirnayd isagoona sidoo kale xabsiga ka sii daayay 3 ka mid ah maxaabiistii halka ku xirnayd oo u xirna arrimo siyaasadeed wasiirka waxa uu u ballan qaaday maamulka degmada diinsoor inay kala shaqayn doonaan horumarinta hannaanka cadaaladda iyo garsoorka degmada sida midka baydhabo oo horumar ballaaran laga sameeyay oo kale markuu meel ku dhawaanay baan banay xabsigii weyn ee degmada diinsoor ilaa iyo todobxubnaada ka hirinayeen meel afar qofka eedaysanayti shabaabnimo iyo inuu xiriir lahaayeen qolada banaanka jarta shabaab qofka eedaysanay inuu samide dadka dhaway qof cusub madaxdiisa ay tahay sarkaal taliyan hay isu toori ka dhaway qof kale oo isuna ka eedaysanay in maamulkii hore isu mucaaraday saas la kiri iyo qof kale oo isuna hajibi tukaan hajabsaday daban maxaabiista sayma la skirinayti mayna hanin batay in dadka qaar kiisas fudud hirinayeen oo dad wada hadalsiilay loo aysanay dadkiyo haysadii ma ahane daban marro bal isku cafi markii uu wada hadalnay mayna batay in oo lankii toorada dadka dhawi oo muddo hirinay tumii kooblooda hirinay la kulunsiina lankii toorada ka dhawi oo sarkaal sheehay waana nin caday inuu safi 26 November wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane maxamed xuseen xasan ayaa baydhabo ka furay kulan wada tashi oo muddo 2 maalmood loogu talagalay inuu socdo
kaa oo loo qabanayay agaasimayaasha guud iyo agaasimo waaxeedyada wasaaradaha dowlad goboleedka koonfur galbeed kaas oo ku saabsanaa diyaarinta sharciyada ay ku shaqaynayaan wasaaradaha dowlad goboleedka koonfur galbeed kulankan wadatashiga ayaa inta uu socday agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo sharci yaqaanada wasaaradda cadaaladda waxa ay ku gorfeeyeen oo lagu baranayay hannaanka diyaarinta hindi sharciyeedyada 29 Novembar ee sanadkan kulan dhaqaale loogu ururinayay dhismaha xarunta maxkamadaha ee gobolka Bokool ayaa lagu qabtay degmada Xudur ee gobolka Bokool waxaa ka soo qayb galay xubno ka socday maamulka gobolka kan degmada Xudur ururada bulshada ganacsatada dhalinyarada haweenka isboortiska iyo marti sharaf oo ay ka mid yihiin agaasimayaasha wasaaradaha howlaha guud iyo caafimaadka koonfur galbeed guud ahaan waxaan halkan ku ekaynaynaa dokumentarigii aynu ka diyaarinay waxqabadka wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane maxamed xuseen xasan iyo howlwadeennada wasaaradda waxaa idinkaga muuqday waxqabad ballaaran iyo weliba dadaallo weyn oo wasaaradda ay samaysay waxaa kaloo meesha ka muuqanaya wasiirka dhalinyarada ee wasaaraddaasi inta uu hayay in uu ka sameeyey isbeddel iyo waxqabad ballaaran qaybaha garsoorka horumarintooda waxa ay aad ugu socdaan gobolka Bokool iyo gobolka Baay waxaana socda ifafaallo iyo dadaallo kale oo hadda loogu sii gudbayo gobolka Shabeellaha Hoose ee koonfur galbeed oo qorshayaashiisu wasaaraddu ay u diyaarsan yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed ay ku faanayso ugana mahadcelinayso madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen waxay noqonayaan oo ka mid ah in markii ugu horeysay garsoorayaasha iyo sidoo kale xiriirayaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed markii ugu horeysay ay mushaar qaataan dowlad goboleedkan ugu ballan qaaday in si joogto ah xuquuqaadka asaasiga ay u leeyihiin ay u heli doonaan si loo helo garsoor ka madax bannaan musuqmaasuq iyo isdawmarin wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed sanadkan sii dhammaanaya 2019 waxay guud ahaan wasaaradaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ay wada shaqaynta kala dhexaysay iyo maamulka uga mahadcelinaysaa sida hagar la'aaneed ay uga garabsiiyeen qabsoomidda howlaheeda shaqo barnaamijkan inta uu socday waxaa si wada jir ah hawada idinkaga soo daadihinayay anigoo ah maxamed cabdicasiis salaad iyo muxudiin xasan maxamed xusni idinna waad ku mahadsantihiin la socodka iyo daawashada muuqaalkan intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan la mid ah oo aan kaga hadlayno waxqabadka wasaaradda cadaaladda iyo sanadka soo socda hadduu eeba idmo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo Nabadkii insan ma qaadin